sababtoo in la dagaalamo lama rabo siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse ay ku hogaaminayaan maanta maamulka ay garwadeenka ka yihiin waa mid yani tabcasho iyo ku tagrifal iyo wax halayn mooyaane ma aha wax hagaajin yahdaba jihaan jihada wala xasane waa kala labo wala ba jihaan hay taas waa wasiirka arrimaha dibadda jihaantan kalena waa wasiirka gaashaandhigga hindana waa maxay ahay waa brotokoolka adoo haweenka meesha jooga iyo gabadhu ka mid tahay gabdhaha waa sharfayna waa ilaalina waa amaanayna ciidan anta kula haysan ciidan aan talis iyo awood ay ku xisaabtamayaan oo ka dambayso oo dhib kasta oo dhaca hadii inta ciidanka lala dagaalamo laga adkaado waa wax la yaqaano ceeb ma aha taasi guul darradu waa imaata soo xasan sheekh ma ninkii lahaa imisan eriyeenayna shabaab haday maalin eriyadeen maxaa dib uga jir markay aaday bal qabsadeen yani waa dawladda 3500 oo ciidan oo wata 200 oo technical oo uu sanay Cabdilamiya leeyahay nin leeyahay uu hogaaminay yaa dareeray iyo xabad qush ka siin oo qaxay islaamiya caruurtiina meesha uga tagay kuwaas marka ma waxa la dhihi karaa yani waa ciidan laga adkaaday meel la dhihi karaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada miya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ha shuute yaa meesha joogay labada koob buu gacanta ku qaatay waa hadii halis baahayd taliyihii ciidanka xoogga dalka gaarigiisii buu ka cararay odawaa yani lama dagaalamaynin meesha dagaal baan fiiri nafiradu ku aaminaba leedahay xalka siyaasadda xasan sheekh nin arkaya ma dagaalamayo marka cilad waa xasan sheekh uu yahay sababtoo ah saadkii ciidanka iyo wasaaradda gaashaandhigga fiqi maalmo dhaweeyay waxbuu dhaqdhaqaajin baa lahaa Soomaaliya kabad baatir war iska fadhiisa meesha wasiirka gaashaandhigga iyo waxa la weydiinayaa dadka maxaan ku yiraahdaa ayto jooga meesha وسؤال السويدية وزير كان نموقضه هو ماشي لقيه كسر ماشي مركو وحاله أذو صحيح بان ليه بالله وحكى له ليه مجرين وك عاي محمد كله بدلان إيه سومالي لا عاي فيسبوك دول فديه وزارة الربا قدها شغال ميقاتي ما شغلة وزارة الربا قدها واحد شويين اللي حوش لكن تهذا وقت الدبر هذا ما قدها كهذا ووحي سوى راقنايا ما سوى وحوي shaqalaana ma joogi karo inuu wax uu maartay dagaal ku jiro oo wax maartay xaganayo ya inta badan hawshiisu ay tahay hadii shaqadiisii lagu mashquulin lahaa oo wasaarad shaqeynaysa oo isagu uu maamulayo uu joogi lahaa waxba uma kan shaheleen gabadh madaxweyne la taliyaha difaaca oo ay aad maxasan walaalay maya waxa lagu yiri waa dimaashidii miya wax noocaas هند علوس وبحنا عسى إن اللي هذا جعله هند علوس خلاص بروتوكول ماين يا أوجو والهوين كم ماشي تشوجا يجبروا كم متى أما هندها تنا إن هند اللي هذا كل دتكو شيء سواء هوين كم ماشي لا بدعايتها الجامعة ما هدعاية والله ما هدعاية وحقيقي ما جهان بلي هذا بلي جهان كان ولا حسنة وكلا لبو ولا بجهان هاي تاسو وزير كريم دبد جهان كلنا waa wasiirka gaashaandhigga hindana waa maxay ahay brotokoolka adoo haweenka meesha jooga iyo gabadhu ka mid tahay gabdhaha waa sharfayna waa ilaalina waa amaanayna aad maartay inaan soo hadal qaadno waxa keenaysa duruufta iyo shaqada loo dhiibay yaa keenaysa laakiin gabdhaha Soomaaliyeed in aan maxaan ku idhaahdaa googaradooda ku dhigno ceeb iyo fadeexad iyo foolxumayd lagu tahay waana ka cudur daaranaya laakiin duruufta keentay madaxweynihii dalka ayaa wasaaradihii u dhiibay hadana awood buuxda siiyay intaas keenaysa marka inaan keenno gabdhaha sharaf iyo nusbi agtanada kale yihiin waana qiimeynayna waana qadarinayna shaqada ay ummadda u hayaan waa ku bogaadinayna ama xumaato ama wanaagsanaateen marka ma fiqad shaqaysi la qaatay fiqi marka waxa uu nafa inuu maalin Axmed Madoobe ka laalaado maalin Cali Guulaaw maxaan ku idhaahdaa iska dulqotamiyo maalin Puntland isu madoobeeyo maalin Somaliland uu maxaan ku idhaahdaa isu qaawiyo shaqadiisu waa intaa shaqo kale oo uu qabanayo ma ay jirto sababtoo in la dagaalamo lama rabo siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse ay ku hogaaminayaan maanta maamulka ay garwadeenka ka yihiin waa mid yani tabcasho
iyo ku tagrifal iyo wax halayn mooyaane ma aha wax hagaajin ma aha wax hagaajin muwaadinkii Soomaaliya ee doonaya dalkan inuu hagaajiyo anigu waxaan ka yaabanahay odawaa ninka la yiraahdo janaal odawaa waxaan moodi jiray shakhsi dareen iyo damiir wadaniyadeed dhalinyaro caafimaad qaba Soomaalinimada yani maartay ogaaday xilka iyo mas'uuliyadda uu hayo hadii aanu ku shaqeeynin oo uusan u madax banaanayn nin aan si joogi karin adhihi karo war waxan uma qalmo ima cuntamaan yaan moodayay laakiin inuu joogo oo ceebtan iyo fadeexadan iyo foolxumadan uu dhex fadhiyo oo alif iyo ba midna uusan ahayn oo maalinka xogaa maleeshiyada la isu keenay la yiraahdo kaale i garab istaag inta aniga waa igala weynaa odawaa ha laakiin waxaanu ceeb ah isagoo taliyihii ciidanka ah inay dhacayaan haddana uu meeshii joogo waxna uusan ka qaban karin ceebta ku waaweyn hadii qaban weyday dama isagoo taliyihii ciidanka isaga waa taliyihii ciidanka markii ciidanka intana guul darro iyo fadeexad ay soo gaadhaysay taariikh weeyaan waa taariikh jab kasta waa qoran yahay guul darro kasta yaa taliyaha baa la leeyahay markasta ku soo noqonaysaa isaga ceebtaas ay waligii dusha ka saaraanaysaa cid dambe oo maxaan ku idhaahdaa yani ka aaminaysa qof karti leh ama qof macquula ka aaminaysaa ma ay jirto laakiin hadduu iskaga tagi lahaa waxbay ahaan lahayd